لا شك أن محمدًا خير الورى ريق الكرام ونخبة الأعيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواada barnaamijkan nooleynta islaamka barnaamijyadii hore waxaan kaga soo hadalnay in qofka ku soo biiro jamaacada Axmadiya uu bayco la galo ama axdi la galo khaliifka hogaanka jamaacada markaa haya axdigaas oo 10 shardi ah oo dhammaantood ku salaysan kitaabka quraanka ah iyo sunnaha nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxaan marka u horeysa rabaa inaan idin xasuusiyo in nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam uu inagula dardaarmay in aynu beeco ka qaadano mahdiga yani rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuu inagula dardaarmay in marka mahdigu yimaado aynu beeco la galno waxaanu yiri فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي وعصو صاري ابن ماجه معناها حديث كأوه حدي أركتان أما لكولانتان مهديك بأوك قاطع أحد لقلا حتى هذا يدنكو كلفيسو إن أكو قرقورتان برفقودكي وردب كستا أمرا أو قادا أو بأو لقلا وايو وخليف الله فإنه خليفة الله المهدي وخليف اللوي خليف اللهنا هوري أيين وقصو هذا الله وحوي والنبي لكن والنبي خادم oo u adeegaya diinta islaamka waxaanu ku gaaray mahdigu maqaamka nabadnimada waa fadliga rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxaan barnaamijkan sii wadaynaa faahfaahinta shuruudaha baycada ama axdiga waxaan ka soo hadalnay shardiga koobaad ka labaad iyo ka saddexaad barnaamijkana waxaan ka hadlaynaa shardiga afraad ka shanaad iyo haddii waqtigu inoo saamaxo ka lixaad shardiga afraad wuxuu ahaa in aanu sinaba waxyeelo u gaarsiin khalqiga eebe guud ahaan gaar ahaana muslimiinta kana ammaan ahaadaan carabkiisa iyo gacantiisa oo aanu sinaba waxyeelo ugu geysan shardigan waxa ku cad
in marka qofku cadhoodo uu is ilaaliyo oo aanu cadhada qofna waxyeelo ku gaarsiin gacantiisa ama carabkiisa. guud ahaanna cid walba ama qof kasta uu ka nabad ahaado, gaar ahaan in qofka muslimka ahi ammaan ka ahaado. waxaa alle kitaabka qur-aanka ah inoogu sheegay in cadhada markaad cadhooto la damiyo oo aanay cadhadu kaa xoog badan. waxaa alle yidhi subxaanahu wa tacaala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وسورة حوية آل عمران آيات بقول سطنيو شن. آيادا أو الله إنه قتل المامي قار كمد sifooyinka kuwa alle ka cabsada, macnaheeduna yahay kuwa wax bixiya waktiga ladnaanta iyo waktiga adag, iyo kuwa cadhada damiya aanay cadhadu ka xoog badan, dadkana cafiya. allena waa jecel yahay kuwa samaha ama wanaagga fala. mahdugu calayhi salaam wuxuu yidhi inaad dembi dhaaf ku hesho beecada ama axdiga aada ila gashay, wuxuu la hadlayaa xubnaha ka mida jamaacadiisa. inaad dembi dhaaf ku hesho beecada ama axdiga aada ila gashay, waxaa loo baahan yahay inaad ka dhimato sidaad u noolayd, si aad u hesho nolol cusub. baycada ama axdiga aan daacad loo gelin qiimo ma laha. markaad baycada ama axdiga ila gashay, alle wuxuu kaa doonayaa inaad daacad ka tahay. ka markaa si daacad ah ii rumeeya ee ii aqbala, si dhab ahna alle ka barya inuu dunuubtiisa dhaafo, waxa hubanti ah in allaha dembiga dhaafaa ee naxariista badani uu u dembi dhaafi doono. wuxuu qofkaasi la mid noqdaa sidii qof hadda hooye dhashay, waxaana ilaalin malaa'igta. wuxuu ku qoray qoraalkan malfuudaad juska 3 bejka 262. waxaa la yidhi addoon uu lahaa imaam xuseen radi allahu canhu, alla raaliha ka noqdee, ayaa fahamka macnaha aayaddan isku xoreeyey. shay baa ka dhacay baa la yidhi ay ku jiraan wax kulul, markaasay ku qubteen imaam xuseen radia allahu canhu. markaasaa imaam xuseen si cadha ku jirto addoonkii u eegay. addoonku wuxuu ahaa addoon caqli badan, qur-aankana yaqaana. markuu arkay in imaam xuseen eegayo radia allahu canhu, ayuu yidhi walkaadimiina alqayd. wuxuu xasuusiyey in sifooyinka mutaqiga kuwa alle ka cabsada ay ka mid tahay inuu damiyo cadhada. markaasaa imaam xuseen radia allahu canhu ku yidhi waa runtaa, waanan damiyey cadhadii, yani kuma cadhaysni ayuu ku yidhi. markaasaa addoonkii akhriyey walcaafiina can innaas, oo ah in sifooyinka kuwa alle ka cabsada ay ka mid tahay inay dadka cafiyaan. oo wuxuu is yidhi inkasta
oo cadhadii uu ku yidhi waan damiyey oo kuma cadhaysni haddana waxaa dhici kartaa inuu qalbiga wax kuugu hayo markaasaa imaam xuseen radia allahu canhu ugu jawaabay oo ku yidhi cafi baad iga tahay markaasaa addoonkii akhriyey wallaahu yuxibu lmuxsiniin macnaheedu yahay in alla jecel yahay kuwa dadka wanaag u sameeya markaasaa imaam xuseen radia allahu canhu ku yidhi xor baa tahay yacni wuxuu ka soo bilaabay inuu yidhaahdo ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa cadhada damiya wuxuu ku xogsiiyey inuu yidhaahdo alle wuxuu jecel yahay kuwa dadka cafiya markuu akhriyey wallaahu yuxibu lmuxsiniin alle wuxuu jecel yahay kuwa dadka wanaagga u fala ayaa imaam xuseen radia allahu canhu ku yidhi xor ayaad tahay addoonkaasi wuxuu isku xoreeyey aqoonta uu qur-aanka u lahaa iyo in sifooyinka qofka alle jecel ay ka mid yihiin ama qofka alle ka cabsada sifooyinkiisu inay ka mid yihiin in marka uu cadhoodo aan cadhadu ka xoog badan iyo inuu dadka cafiyo iyo inuu same iyo wanaag uu falo oo dadka same iyo wanaag u sameeyo waxa iyana xaqiiqo ah in imaam xuseen radia allahu canhu alla raaliha ka noqdee ahaa qof alle ka cabsanaya oo alle jecel qodobka afraad waa axdi in aanad qof kale sinaba waxyeelo ugu geysan waxaa rasuulkeenu sala allahu calayhi wasalam uu xadiis inoogu sheegay sababaha keena in qofku xadgudbo oo qof kale magaranaysa uu dhibaato u geysto waxaana ka mid ah xasadka muranka uurkusidada uu dadku caloosha wax isugu qaado isnacaybka marka wax la kala iibsanayo oo la isku dulbaayaco isla weynida uu qofka kale hoos u eego waxyaabahan oo dhan waxay keenaan in qofku uu ku xadgudbo qof kale wuxuu yihi abu hureyra radia allahu canhu waxaa rasuulkeenu sala allahu calayhi wasalam yidhi xadiis macnihiisu yahay yaa midkiina mid kale xaasidin in muranka laga fogaado in aan xumaato caloosha la isugu hayn in marka wax la kala iibsanayo aan la isku dulbaayicin in hor ilaahay loo ahaado walaalo labada qof ee wuxuu yihi muslimka ahi waa walaalo marka waa inaanad cadaadin walaalkaa waa in aanad hoos u eegin walaalkaa markaasaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam tilmaamay laabtiisa 3 jeer oo yidhi taqwadu waa halkan taqwadu waa halkan taqwadu waa halkan waxaa qof dembi ugu filan inuu walaalkii hoos u eego dhiigga hantida iyo sharafta qof kasta oo muslim ahi waa ka xaaraan qofka muslimka ah xadiiskan waxaa soo saaray saxiix muslim wuxuu yihi mahadigu calayhi salaam isagoo u nasteexaynaya jamaacadiisa dembi dhaaf alle weydiiso inta aan ciqaabta alle aanay xidhin albaabka dembi dhaafka maxaa sharciyada dunida looga baqaa sharciga alle si aan looga baqan markasta masiiba timaado qof walba way saameyn qof kasta waa inuu isku dayo
inuu u kaco salaada tahajudka ee habeenkii loo kaco. salaadaha 5 waqtina waa in lagu ducaysto qunuud. qunuudku waa ducada lagu ducaysto salaada witirka. salaada witirka ducada lagu ducaysto ayaa la yiraahdaa qunuud. marka mahdu calayhi salaam wuxuu leeyahay salaadaha kalena ku ducaysta qunuud. ka toobad keena wax kasta oo kuu keeni kara cadhada alle. toobad keenistu waa in xumaan oo dhan laga dheeraado iyo wax kasta oo aan alle raalli ka ahayn, iyo in isbeddel dhab ah lala yimaado lana raaco dariiqa saalixiinta. sidan ayaa naxariista alle ku jirtaa. ka dhig macaamilkaaga mid wanaagsan, cadhada iska ilaali oo dulqaad lahaw. akhlaaqda wanaagsan waxaad ku dartaa inaad sadaqo la baxdo. waxaa alle qur-aanka ku yidhi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وسورة حوي الدهر آيات 9. معناه هي si aad alle u raali gelisaan waxaad quudisaan ka faqiirka ah, ka agoonka ah iyo ka baahan, kuna tidhaahdaan waxaanu idiin quudin in alle naga raali noqdo iyo cabsi aanu ka cabsan maalinta baqdinta leh, waa qiyaamaha weeye. markaa tukada, dambi dhaaf alle weydiista, sadaqana la baxa si alle weynaaye idinku naxariisto. wuxuu ku qoray mahdigu malfuudaad juska 1 pageka 134 ilaa 135. waxaan hadda u gelaynaa shardiga 5. shardiga 5 wuxuu ahaa in ka ku soo biiro jamaacada axmediya inuu eebe kalsooni iyo aamin ku qabo duruufaha noloshiisa oo dhan, hadday tahay murugo, farxad, faqiirnimo, ladnaan, iyo inuu aamino in xaalad kastaa ku timaado qadarka alle, iyo inuu diyaar u ahaado inuu hor ilaahay u horo naftiisa iyo sharaftiisa oo aanu marna ka leexan dariiqa alle marka dhibaato ka hor timaado, balse uu hore ugu sii maro. waxaa alle qur-aanka ku yidhi subxaanahu wa tacaala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وسورة البقرة وهي آيات 208. آيات معناheedu waxa weeye waxaa dadka ka mid ah mid naftiisa u iibin inuu ku helo raaligelinta alle. allena waa u naxariis badan yahay. allena waa u naxariis badane addoomihiisa. waxaa mahdigu calayhi salaam yidhi isagoo aayaddan sharxaya, dadka waxaa ka mid ah kuwo maqaam sare leh oo naftooda u hura inay ku helaan raaligelinta alle. kuwani waa kuwa alle ugu naxariista badan yahay,
markaa ka maqaamka nolosha ruuxaaniga ah soo gaadhaa wuxuu noqdaa mid u go-ay u adeegista alle. wuxuu noqdaa mid u go-ay u adeegista alle. aayaddan waxaa alle inoogu sheegay in ka qura qofka keliya ee aafooyinka ka badbaadi yahay ka naftiisa iibsha ee u hura u adeegista alle si uu u helo raallinimadiisa kuna muujiya daacadnimadiisa fidaynta naftiisa isagoo raalli ku ah. kaasi wuxuu u haystaa in loo abuuray inuu adeeco allaha abuuray una adeego khalqigiisa. wuxuu u samayn khayrka wuxuu ku samayn khayrka awood kasta oo alla siiyey si daacadnimo ah oo dhab ah sidii uu alle arkayo oo kale. wuxuu doonaa wixii alle raalli ka yahay. farxaddiisa oo dhammina waxay noqon adeecista alle. camalka wanaagsani kuma aha dhib, waa u farxad uu raalli ku yahay. waxaa mahadigu ku qoray erayadan kitaabka falsafadda tacliinta islaamka. waxaa abu hureyra radia allaahu canhu ka wariyey rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi kuma timaado qofka muslimka ah masiibo ama dhibaato ama xanuun ama dhib kale ama walwal xitaa ha noqoto qodax yar oo xagata waxaase alle kaga maydhaa in ka mid ah dembigiisa. waxaa soo saaray saxiix muslim. waxaa kale oo ibnu cabaas radia allaahu canhu yidhi anoo mar la socda rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo aanu fardafuushannahay ayuu igu yidhi inankaygiiow waxaan ku barayaa dhowr masalo. alle maanka ku hay alle maanka ku hay wuu ku ilaalin. alle maanka ku hay alle maanka ku hay waxaad arki inuu kuu dhow yahay. markaad baahato alle qura weydiiso. haddii aad caawimo u baahato alle keliya weydiiso inuu ku caawiyo. xasuusnow haddii adduunka oo dhamme isu tago in ay wax ku taraan waxba kuma tari karaan haddaan alle ogolaan oo alle kuu qadarin. sidoo kale haddii ay isu wada tagaan inay wax ku yeelaan waxba kuma yeeli karaan haddii aan alle waxyeelada kuu qadarin. qalinkiina waa la kor yeelay khadkiina waa engegay. macnuhu waxa weeye wixii alle qoray ayuunbaa dhacaya. waxaa soo saaray sunan atirmidi. waxaynu hadda ka hadlaynay shardiga shanaad waafaqsan yahay kitaabka alle iyo axaadiista rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam in qofka kusoo biira jamaacada axmediya uu duruuf kasta oo ku timaada uu raalli ku ahaado qadarka alle. naftiisana u huro hor ilaahay kalsooni iyo aaminna ku qabo allaha abuuray. mahdigu calayhi salaam isagoo la dardaarmaya jamaacadiisa oo uga digaya in alle imtixaami doono wuxuu qoray waa lama huraan in la idinku imtixaamo
siyaabo badan oo xanuun iyo dhibaato ah sida kuwii idinka horeeyey loo imtixaamay. markaa isjira si aydan ugu dhicin ilaa inta aada xidhiidh adag samada la leedihiin. dhulka ama adduunyadu waxba idima yeeli karto. mar kasta oo dhibaato idinku timaado naftiina ayaa sabab u ah, ma aha cadowgiina. haddii sharafta dunida oo dhan la idinka qaado, alle ayaa sharaf abada ah oo weligeed jiraysa samada idinka soo dejin. markaa xadhigga alle ha sii daynina. waa in ay dhacdaa in la idin colaadiyo oo khasaare badani idin soo gaadho. hase qalbi jabina, waayo waa alle, waa ilaahay, waa allaha idin abuuray ka idin imtixaanaya se u muuqato inaad ku adkaysataan dariiqa alle iyo in kale. haddii marka aada rabtaan in malaa'igtu samada idinka ammaanto, u adkaysta in la idin garaaco, afxumo oo dhan la idiin geysto, idinkoo isla markaa alle ku mahadinaya. u adkaysta in khasaare idinku yimaado, laakiin marna ha sii daynina xadhigga alle. waxaad tihiin jamaacadii u dambeysay ee alle. sidaas awgeed wanaagga ugu dhaqma sida ugu wanaagsan. ka idinka mid ah ee caajis noqda waa laga saari jamaacada sidii wax aan qiimo lahayn. waxaanu ku dhiman murugo, wuxuu alle yeeli doonaana ma jirto. waxaan idinku bushaaraynayaa in alle dhab ahaan jiro, in jiritaanka alle uu dhab yahay. cid kasta waa abuurkiisa, waxaase alle doortaa ka isaga doorta. waxaanu sharaf huwiyaa ka isaga sharfa. mahdigu calayhi salaam eryadan wuxuu ku qoray kishti nuux, waa kitaab mahdigu qoray. ruuxaani khazaayin juska 19 bejka bogga 15. haddii alle ka dhigo faahfaahinta shuruudaha beecada ayay barnaamijyada dambena sii wadi doonaa. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعد